maxay uga cararayaan kitaabkiisa iyo hadalkiisa oo u aadayaan heesaha iyo cawaysada xun iyo akhrisashada wargeysyada iyo majallaadka xun ma waxa hoday dulqaadka dulbadanaha ma waxa hoday deeqlaha ma waxay isleeyihiin aamin baad ka tihiin qorshaha iyo tabta alle ma waxay isleeyihiin aamin baad ka tihiin argudashada argutaaga xooga badan ma waysan ka baqeen inuu u yimaado malakal mawtku iyagoo ku jira macaasi ma waysan ka baqeen inuu mawtku u yimaado iyagoo dayacay salaadii ma waxay isleeyihiin waxaad aamin ka tihiin inuu alla idin qabto qabasho awood la karaan badan ma waxay isleeyihiin waxaad ka tihiin aamin qorshaha iyo tabta alle isma yiraahdaan waxaad aamin ka tihiin tabta iyo qorshaha alle waxaan ahayn qoonka daalimiinta dhallaankii maxamedow raggii abuubakarow ubadkii cumarow firkii saxaabadow u noqda rabbigiin oo iska dhowra naar iska dhowra jahannama waxaa hortiinna ah dhibaatooyin iyo arrimo culus waxaa hortiinna ah ama naciim ama naar waxaa hortiinna ah beesooyin iyo arrimo murugsan waxaan ku dhaartay allaha ilaah kale oo xaq u ah uusan jirin isaga ma ahe waxba idinma tarayaan qosolada waxba idinma tarayaan doc iyo geesa ka xiridda timaha waxba idinma tarayaan heesaha xun waxbana idinma tarayaan sawirrada qaaqaawan waxaa wax idin tari kara oo wax idin noqon masaajidudu waa sheeganayaan xalqadaha duruusta diiniga waa taahayaan وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسولكنا محمد صلى الله عليه وسلم وحو أرندونا ربي جيجيو حقيقي قوم كيجي وحي كهاجرين تجين قرآن كان ما أين دقيسا كمنا أين عمل فلن شرعية حيراركي أم الرديسة آوي دلن يرو آوي دلن يرو آوي دلن يرو ورهوي وحان أنيقو إذن كييري يا توبت إي أصول الله بشاء الله warhooy anigu waxaan idinku yeerayaa inaad xiriirka ka goosataan saaxiibada xun iyo seerooyinka fasahaadka ka fogaada oo ha u dhowaanina iyaga si aydan u shallaayin maalinta qiyaamaha maalin ayan wax tari doonin maal iyo caruur midna dabadeed haya oo ku socda jidka hanuunka la jirka wajiyada fiican ee ifaya la jirka qalbiyada daahirka ah ee cad ee aan xasadka isla weynida iscajabinta ka maran la jirka carabyada nadiifka ah ee la qoyan xusidda alle ee aan aqoon xinta war xun fidinta aan aqoon beenta balada propagandada la rafiiqa ahlu khayrka iyo quraanka kamid noqda si aad u dareentaan dhadhanka nolosha iyo macaanka iimaanka maalinta qiyaamahana waxa la idin geen doona jannooyin wanaagsan idinka alle qoonkeygiyo waxaan anigu idin ahay samaka taliyan isteexaya aamina qoonkeygiyo run ahaantii noloshan adduunka ma aha waxaan ahayn sahay iyo raaxa dhamaanaysa oo xaqiiqdii aakhirada taas baa daarta waari doonta abadkeed kii kastoo sameeyaa falxun laguma jaasayn doono waxaan ahayn iyadoo kale oo kii kastoo wanaag fala lab ama dhadig wuxuu ahaadaba isagoo mu'min dhaba rumaysan tawxiidka alle kuwaas baa geli doona jannada halkaasaa lagu irsaaqi doonaa dhexdeeda wax kasta iyagoo tiro badan xad la'aan qoonkaygiyo waa sidee waxaan idinku yeeraa badbaadada halka aad idinku igu yeertaan naarta waxaad igu yeertaan inaan ku gaalooba alle iyo tawxiidkiisa iyo inaan u yeelo shariike xagga cibaadada isaga la jirki oo aan u haysan wax cilmi ah aniguna waxaan idinku yeeraa xagga awood badanaha dambi dhaafka badan shaki male waxaad igu yeertaan inaan caabudo mid aan ii sahli isiin karayn muraadkayga ama aan ajiibayn ducadeeda adduunka ama aakhirada oo noqodkeenna wuxuu ahaan doonaa xagga alleh oo musrifiinta yacni mushrikiinta isla weynayaasha kuwa la yimaada dembiyo waaweyn oo halisa kuwa dhaafa xuduudaha alla dhigo iyagaa noqon doona ahlu naarka oo waa xusuusan doontaan waxa aan idiin sheegayo arrinkayga waxaan u daayaa allah xaqiiqdii alleh waa arkaha addoomihiisa saaxiibba maalintaas waxay isu ahaan doonaan cadowyo midkoodba kan kale lid ku ah marka laga reebo muttaqiinta waa suubanayaasha saalixiinta ah ka cabsada allah wax badan ka jooga falalka dembiyada ah ee uu alla reebay oo alla jecel wax badan guta dhammaan falalka wanaagsan ee uu alla ku waajibiyey waxaa lagu oran doonaa mu'miniinta runta ah ee muwaxidiinta ah addoommadaydiyow baqdini ma ahaan doonto korkiinna oo ma murugoon doontaan idinka kuwa rumeeyey aayadahayga casharadayada calaamooyinkayaga waxyigayaga iyo wax la mida ee ahaa muslimiin macnaha waa kuwa isugu dhiba si dhan doonista alleh oo u hoggaansan oo rumaysan tawxiidka alle tawxiidka islaamka gala jannada idinka iyo afooyinkiinnaba gala jannada idinka iyo eenigiinnaba idinkoo faraxsan xerooyin dahaba iyo koobab baa lagula wareegi halka waxaa ahaan doona dhexdeeda jannada dhammaan waxay naftu jeclaysato iyo dhammaan waxay indhuhu macaansan karayaan
oo waad ku waari doontaan dhexdeeda jannada daa'in iyo abad tanu waa jannadii laydinka yeelayay inaad dhaxashaan wixii aad camal fali jirteen nolosha adduunka awgeed dhexdeeda jannada waxaa la hidiin ahaan doona faakihooyin tiro badan oo aad cuni doontaan sidii aad rabtaan wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam 7 qofood waa kuwa la hooyin doona harka alleh maalinta qiyaamo maalintaas uusan jiri doonin hoos kale hooskiisa meehe 7daa waxaa ka mid ah 2 qof oo alla dartii isku jeclaaday oo sidaas isugu yimaada sidaasna ku kala taga wuxuu kaloo yidhi sala allahu calayhi wasalam wuxuu alla weyne korahayo odhan doonaa maalinta qiyaamaha aaway kuwii isjeclaa dartay maantaan hoyinaya hooska xaggayga ka ahaday maanta ma jiro hoos aan hooskayga ahayn wuxuu alle ku yidhi xadiis qudsi ah waxaa kuwaa midba kan kala jecel dartay cabsi darteed weynidayda iyo sharaftayda ah ay leeyihiin oo sugaya kursiyo sare oo nuur ah oo noqon doonta wax ay kunyadaan jeclaadaan in iyadoo kale la siiyo nebiyada iyo shuhadada wuxuu sidoo kale alla weyne ku yidhi xadiis qudsi ah waa igu xaq iyo waajib saaran inaan jeclaado kuwa midba kan kale u jecel dartay midba kan kale ula kulma dartay midba kan kale u booqda dartay midba kan kale wax u tara dartay maalik waana xadiis saxiixa addoomihii allow gacaliyayaal dhallinyarow wallaahi uma istaagin halkan ugumana hadlin hadalkan waxaan ahayn inaan u baqay wejiyadan dhalaalaya inay noqdaan madow maalinta qiyaamaha wejiyadan ifaya inay noqdaan mugdi dulli saaran yahay oo wejiyadan barwaaqaysan naari cunto caloolahana laga buuxiyo zaquum iyo carun addoomihii allow dhallinyaroy wallaahi baan wax kale lidiin abuurin aan ahayn caabudidda alle wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun oo anigu allah uma aan abuurin jinka iyo insiga waxaan ahayn inay caabudaan aniga keliya laydinma abuurin dheel iyo cayaar afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun ma waxaad moodaan inaan idiin abuurnay cayaar ujeedda la'aan oo aan idiin soo celinayn xaggayga haddaba u diyaar garooba la kulanka alle caza wajalla oo xusuusta u noqoshadiinna alle war ma waydan fakarayn aaway caqligiinni ma wuxuu shaki idinka jiraa yabooha alle iyo goodintiisa yaa ayuha annaasu ina wacda allaahi xaq falaa tagurrannakum alxayaatu dunya walaa yagurrannakum billaahi alguruur ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير دضو حقيقي يبوها اللوار أي يسن رشن سكاء دونك إذن هذن أو يوسن مدح وحذياشا شيطان إذن كهذن الله هباشي شيطان وحو إذن يهي عدو إذنك أي كدكتا ولا دغم إستقع عدو أهان وحو أكلي أغويا را حزبكيسا taageerayaashiisa wixii raaca inay ka mid noqdaan ahlu naarka kuwa gaalooba qaybtoodu waxay ahaan doontaa cadaab daran kuwana rumaysan tawxiidka alle tawxiidka islaamka oo falaa camallo wanaagsan oo suuban qaybtoodu waxay ahaan doontaa dembi dhaaf iyo ajar weyn waa janno haah wallaahi waad xusuusan doontaan hadalkan ballankuna waa maalinta qiyaamaha waadna ogaan doontaan kan ku sugan hanuun iyo kan ku jira baadicad waadna ogaan doontaan qofkii ku sugnaa nuur iyo ilays iyo kan heehaabaya mugdi gudcur badan aw man kaana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi اظulumaati laysa bikhaarijin minha ma mid isagu ahaa mayd iimaan la'aan jahli iyo gaalnimo iyo fisqi darteed oo aan siinay nolol aqoon iyo iimaan iyo camallo suuban oo aan u yeelnay ilays caqiido ama qabitaan wanaagsana oo ku socon kara dadka dhexdiisa baa la mida mid isagoo ku jira mugdiyo gaalnimo maxay uga cararayaan kitaabkiisa iyo hadalkiisa oo u aadayaan heesaha iyo cawaysada xun iyo akhrisashada wargeysyada iyo majallaadka xun